السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هديد بيضبك la saaro muddo ayay ku qaadataa inay karkaraan. Haddaba sidee bay ku dhacday in mar walba oo meel sare la koro ay biyuhu si dhaqso ugu karaan? Sida caadiga ah biyuhu waxa ay karaan marka uu cabirka heerkulkoodu gaaro 100 digrii. Laakiin haddii aad biyo ku karsato buurta adduunka ugu dheer ee Himalaya ayaa waxay biyuhu ku karkaraan 80 digrii. haddaba sidee bay ku dhacday arrintaasi? Horta marka hore biyuhu inay uumi baxaan oo iska beddelaan dareere oo ay gaas noqdaan uma baahna in dabka la saaro. biyaha badduba waa uumi baxaan iyagoo aan heerkulkoodu gaarin 100 digrii. xataa biyaha galaas ku jira oo qolka dhexdiisa yaal qayb ka mid ah biyaha ayaa gaas isu beddelaysa inkastoo aan la dareemi karin nuqsaanka biyaha ku dhacay. haddaba si aan wax uga ogaano sheekada biyaha waa inaanu marka hore fiirinaa waxa loo yaqaan cadaadiska hawada atmospheric pressure ama carabigana lagu dhaho daqdil jawi. dhulkeena waxaa ku xeeran hawadaas oo leh culays. mar walba oo aan meel sarreysa aadno cadaadiskii hawada ayaa yaraanaya sababtoo ah hawada naga sarreysa ayaa yaraatay culayskeeda iyo cadaadiskeedana waa uu yaraanaya. waa waxa keena in dadka koraya buuraha adduunka ugu dheer sida buurta Himalaya ay oksijiinta ku yaraato oo mararka qaarkood ay u baahdaan inay oksijiin qaataan. haddaba mar walba oo kor la aado hawada ayaa yaraata taasoo keenta in cadaadiska hawada iyo culayskeedii uu yaraado. marka waxa biyaha u diidan inay isla markiiba uumi baxaan oo gaas isu beddelaan waa cadaadiska hawada. weligaa ma aragtay biyo karkaraya iyagoo aan la kulaylin? haddii biyaha intii meel lagu awdo hawada halkaa ku jirta laga saaro biyahaasi waxa ay bilaabaan inay karkaraan oo isu beddelaan gaas ama hawo. sababtoo ah cadaadiskii hawada ayaa laga dulqaaday taasoo u sahlaysa inay si fudud ugu uumi baxaan oo isugu beddelaan gaas. haddaba haddii biyaha dabka la saaro waxa ay awood u siisaa kulaylkaasi inay helaan energy ay uga adkaadaan cadaadiska hawada una sahasha inay isu beddelaan gaas. haddaba buurta dusheeda hadday aad u sarreyso cadaadiskii hawada waa uu yaraaday taasoo keenaysa in kulka ay biyuhu u baahnaayeen inay ku karkaraan ay aad u yaraato. waa waxa keenay in biyuhu sida dabiiciga ah ay ku karkaraan 100 digrii. laakiin haddii wax lagu kariyo buur aad u dheer maadaama cadaadiska hawadu yaraaday biyahaasi waxay u baahanayaan kul ka yar markii hore si ay u karkaraan oo isugu beddelaan gaas. waxa ay taasi tusaysaa in biyuhu ay jecel yihiin inay gaas noqdaan. waxa u diidan arrintaasi ay tahay culayska hawada dusha ka saaran. haddii biyaha lagu shubo meel hawadii ku jirtay laga saaray isla markiiba waxay isu beddelayaan gaas. haddaan hadalka soo koobo hawadu cadaadis ayay leedahay mar walba oo aad meel saro aadana cadaadiskii waa uu yaraanaya sababtoo ah hawada korkaa jirta ayaa yaraatay. markaad meel hoose joogtidna cadaadiska hawada waa uu badan yahay sababtoo ah hawada korkaa jirtay ee culayska ku saaraysa ayaa fara badan. marka goorta aad biyo ku karinaysid dhul hoose cadaadiskii hawada ee biyahaas u diidayay inay si dhaqso ah ku karaan waa uu badan yahay. markii aad joogtid meel buur sare ah oo kale oo cadaadiska hawadu waa uu yaraanaya taasoo u sahlaysa in biyahaasi si dhaqso ah ku karaan. haddaba haddii aad rabtid in shaaha aad karinaysay uu isla markiiba kuu karo meel buur sare ah ku karso. haddii aad ka faa'iiday fadlan like garay haddii kalena dislike samay. intaan mar dambe kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullah.